kilalka shanaad waa la kala goynayaa oo laba kilal baa laga dhigayaa kilal la ogaadeen leeyahay kilal la idoor leeyahay ama isaaq uu leeyahay guddi baa loo saaray oo ingiriiska jooga jawaab baana laga sugayaa oo kilalka kala goynaya 2,000 kilomitir ku dhawaad bay isaaq degaan ogaadeenna intaa in leeg buu degaa suurtagalna maaha in ogaadeen la daba fadhiyo ciidanka federaalka Itoobiya ayaa la wareegay ammaankii dhanaayo waxa weeye ciidankeena iyo ciidanka dawladda federaalka ayaa maamulaya degmada Xarshin iyo waxa weeye degmooyinka kale doorka uu dago waa hadallada ka soo yeedhaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee beelaha isaaq ama beelaha door mid ka u taqaanaba dagaalkii dawacaalay markii uu dhacay oo maleeshiyaadkii argagixisadaha cagta la mariyay waxaa soo baxay wax aad iyo aad looga xumaado oo weliba haddana ay ku hadlayaan dad baraha bulshada laga yaqaano siyaasiyiin iska dhigaya odayaal waaweyn waaqica saxda garanaya balse iska indhatiraya oo jaha kale to qaadaya ayaa soo baxaya isaaq waxay leeyihiin anaga ciidanka deegaanka nama maamulayo oo maamulka deegaanka ma hoos tagayno oo kilalka waa la kala goynaya oo laba laga dhigaya oo guddi baan u dirnay oo ingiriiska ku maqan oo ingiriiska waxa weeye qorshe keeni doona oo 2 kilal baa laga dhigayaa oo kilalka shanaad laba loo qaybinaya oo midna isaaq baa yeelanaya midna waxa yeelanaya ogaadeen waxay kaloo leeyihiin ciidanka deegaanka nama anaga waxa weeye nama maamulayo oo maamulka deegaanka anaga ma hoos tagayno waa arrimo la yaab la weeye waan dul istaagi doonaa waxaan dhanka kale iyadana dul istaagi doonaa dagaal dhex maray ciidanka militariga ee dalka Itoobiya iyo maleeshiyaadka argagixisada ahaa ee Balligubadle lagu ururinay Balligubadle ayaa la isku farasaaray xog baan idinka wada iyadana faahfaahsan sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale maxaabiis badan oo intii la qabtay lagu wareejiyay ciidanka New Booliska iyaga iyo waliba hubkoodiba falcil xoogan oo ka dhalatay ayaan iyadana dul istaagi doonaa siyaasiyiinta waxaasi qorsheynaya ee ku dhawaaqay ayaan iyadana magacyadooda qaar ka mid ah idinla wadaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay Faysal Cali Waraabe oo shalay hadlayay ayaa warbaahinta u sheegay in kilalka shanaad laba loo qaybinayo guddiga ay u saareen guddigana ingiriiska ay ku sugan yihiin go'aanna laga sugayo labada loo qaybinayana mid ay saaq yeelanayaan midna ay yeelanayaan ogaadeen ay yeelanayaan oo labada kilal loo kala qaybinayo waxaa kaloo uu ku daray inaysan suurtagal ahayn inay ka sii mid ahaadaan isaaq beelaha ogaadeen ama ogaadeen ay ka mid noqdaan oo maamulkooda ay ka sii mid noqdaan wuxuu intaasi sii raaciyay in isaaqu uu dego ku dhawaad 2,000 kilomitir oo kilalka shanaad uu ka dego kilal gaarana uu noqon karo maadaama dhulka uu dego uu aad u weeyahay waa soo isagu hadalka u dhigay dhulka baaxadda leh ee aan degna buu yiri waa in kilal inaga aan leenahay laga sameeyaa ma aha buu yiri in kilal kale la daba joogaa oo daba joogaan qorshahana waa socdaayo guddi ayaan u xil saarno ingiriiska ku maqan oo horay baaba loo magacaabay waa horaaba la magacaabay guddiga waa Faysal Cali Waraabe iskamu dhihine waa raayi ka soo dhaxguuxaya beelaha door waa wax ay isku dardarsadeen sababna u noqotay in maleeshiyaad argagixiso ah oo meelay ka dawaan gashay yihiin la garanaynin inay tay soo galiyaan gudihii deegaanka xuduntii deegaanka ay ku abuuraan dagaal ay halka ka geystaan maati iyo madaxda aysan dhaafin oo halka ay ku laayaan qorshahan mar hore la degay mar hore wax kugu soo booday ma ahayn isaaq waxa halka ciidanka u geeyeen kugu soo booday ma ahayn wax laga baraandegay la diyaariyay muddo badan la waday dhinacyo badan laga fiiriyay hubkoodii saanadoodii dhalinyaradii la qoray marka kadib intii qayb loo soo geliyay saldhigyo loo sameeyay la dajeebay qorshahay lahaayeenna waa midkaa soo guuxaya ee maanta dhul aysan lahayn oo meelay ka degaan aan la garanaynin ay ugu soo hanqaltaagayaan 2025 2024 bal ayaan darada dhacda ugu inta leegtay war meesha la ay degaan isaaq ee maanta kilal u noqonaysa ilmadeeyaal Soomaaliyeed waa taqaanaane waa xagee war ma laba qabalo Xarshin dusheeda ku yaala noqonaya kilal laba qabale oo degmada Xarshin dusheeda ku yaala
miyaa kilal noqonaya xaggee kilalku noqonaya midda labaad ma xarshin iyo gaashaamo dhexdooda kilal laga samaynaya xarshin iyo gaashaamo dhexdooda ma kilal bay noqonaysaa ayadana waa arrin caqligal aan ahayn isla markaana u horseedi karta dhibaato midda dhacday ka weyn inay dhacdo maanta way degan yihiin isaaq dhulka ma deganaan lama laho laakiin tuulooyin bay ka degan yihiin tuulooyinkana marti bay ku yihiin afarta gaar baa laga taagan yahay afarta gaar baa laga jira oo laga taagan yahay dadka deegaankalabaa afarta gaar ka taagan reer walba meel wuu degaa reer walba ogaadeenba wuu degaa somalilan ogaadeenba somalilan wuu degaa may sheegtaan ilaa qabiilo dhan oo ogaadeenaa degee bahgiri baa degtee way ogyihiin iyagame oo weliba maamulka ay wax ka siiyeen oo shaqaala oo kamida somaliland ka shaqeeyaan may sheegtaan oo dhan somaliland baan leenahay isaga dhulkiisaan leenahay berberiya hargeysaan leenahay bay dhahaan ma dhihi karaan qof marti ah waa marti haddii lagu sooriyeeyo reerka lagaa sooriyeeyo oo si fiican lagugu sooriyeeyo ma aha micnaheedu inaad xoolaha joogiya reerka adigu leedahay marti baa tahay sooriyadaada cun haddaad joogaysana oo joog lagu dhahana iska joog haddaad tegaysana tag laakiin talada reerka iyo maamulka dhulka ma sheegan karti haddaad sheegato dee har cad baa lagaa dhex saaraya isaaq marka waxaan leeyahay hadda weli waxaa laynii ogol yahay inaad deganaataan laakiin beri waxaa imaanaysa iyadoo laynii diidan yahay inaad deganaataan haddaad joogi weydaan weye inaad deganaataan baa laynii diidi doonaa xuduuddaa layna goysiin doonaa isaaqiya waa la ogsoon yahay ogaadeen meesha xuduud u ahayd isaaqiya daarood meesha xuduud u ah waa la yaqaanaa reer walbo isaaqa iyo reer walba oo daarooda meesha ay xuduudda ka lahaan jireen waa la garanayaa halkaas baa lagu xariiqi un lagu marin haddaad diidana qori baa dabada lagaa gelin waa la iska kaa celinaya waxba lagugu reeban maayo marka hadallada aan waxba tegaynin ee micnaha aan lahayn ee siyaasiyiinta idoor ay baraha bulshada la taagan yihiin war ka daaya ha iskaga darina wallahi waa iskaga daraysaan dawacaaley waad uga daraysaan xarshin baad uga daraysaan tuulooyinkaa degan tihiin baad uga daraysaan dadka degan ee masaakiinta ayaad ku khasbi doontaan wax maanta aysan waxa weeye aan haysanin inay maraan baad ku khasbi doontaan ka daaya anigu waa ka digaya dadka masaakiinta ma rabo in la barakiciyo ma rabo inay dhibaato gaadho kuma faraxsani ilaahay baa igu og waad soomaali waa ilmaadeertay laakiin caqli qalloocsan oo guracan oo siyaasi ayaa sabab u noqon doono inay barakacaan oo la kiciyo sabab u noqon doono waa caqli siyaasi oo qalloocsan oo guracan oo aan jid iyo jahatoona lahayn oo midkaa odayga cantatabkaaye waxa weeye asaasiqa waa asaasiqaasoo kaleeto caqlikiisaabaa sabab u noqon doona waana midka maleeshiyaadka lagu geeyey dawacaaley argagixisada ah marka ka daayaan leenaysaa caasi waa middaa dhinaca kaleeto dhowr iyo 10kii saacee ugu dambeeyey waxaa si weyn baraha bulshada u haysataa in ciidanka militariga dalka Ethiopia ay la wareegeen dhammaan xuduudda deegaanka Soomaalida iyo maamulka Somaliland u dhaxaysa sida degmooyinka Daroor, Xarshin iyo sidoo kaleeto degmooyinka kaleete ee xuduudda dhaca waxay iyagu dhaheen oo dhinaca Somaliland propaganda ay soo galiyeen in ciidanka militarigu ay halka la wareegeen ciidanka new police-kana meesha laga saaray ciidankooda iyo ka militarigana ay iskaashanayaan waa ka Somaliland xuduudan ay ku wada sugayeen waxaa kaleeto baraha bulshada ku jirta in dagaal uu dhex maray ciidanka Ethiopia militariga iyo ciidankii argagixisada ahaa ee balligubadle lagu aas-aasayay haddaba arrimahaas baan isla haysiinaynaa ee ciidanka militariga ee xuduudda ku sugan aagga balligubadle ayaa ka warhelay kooxo argagixiso ah inay meesha agagaarka ku dhuumalaysanayaan kadibna Sweden baa laga qabtay waxa loo yaqaan waa la hareereeyay way isa soo dhiibeen markay iyaga iyo qoryahoodiba waa la qabtay iyaga iyo qoryahoodiba ciidanka new police-ka lagu wareejiyo loo dhiibay ciidanka deegaanka halka ka howlgalay ayaa la yiri waa kuwana qabta iyaga iyo hubkoodii iyo waxay wateenba ciidanka new police ayaa lagu wareejiyo loo yiri qabta iyagu marka waxay ka xishoonayaan ciidanka militariga wax yeelay ilaa iyaga dalbado yiri militariga hada loo keeno militariga waa inuu imaado iyaga dalbanayay ma dhihi karaan marka militariga baa dhalaayay oo naqa qabtay oo nala dagaalamay ma dhihi karaan
way suubisteeno waxay leeyihin marka ciidanka militariga iyo ciidanka anaga iskaashanaya halkaas iskaashanaya waxba kama jiro maleeshiyaad argagixisay ciidanka militarigu qabteen ciidanka iyo booliskay u dhiibeen iyagay u gacangeliyeen iyaga iyo hubkoodiba